Habi Cabdi Fataax oo ah laba lamaano oo goor dhaweyd wada aqal galay misna bilooyin isqaba ayaa waxaa dhacday inay kala tagaan waa siday afkeeda ku cadaysatay Habi Axmed oo ah gabar caan ka ah TikTok. Habi ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ka cagajiideysay in 5 bilood oo la qabay oo la furay taa oo aad ugu adkaatay tan labaadna biilasha guriga oo aad u adag maadaama uu Cabdi Fataax uusan shaqayn tan saddexaadna waa 24 saac Cabdi Fataax iyo wiil oo fanaan ay saaxiibo yihiin oo wada fadhiya misna wada qaylaya ama qaad cunaya tan afraadna Habi ilaa ciida laga soo bilaabo guriga kuma nagaato oo sida ay u baxdo habeenkii fiidka waxay timaadaa kala bar habeenkii oo loo yaqaan labada habeenimo ama 8 habeenimo ka hor suumo hoyato warar hoosena waxay sheegayaan in Habi laba dalaaq lagu furay balse aan xaqiiqsanayn Habina waxay leedahay waa ku kala kacsana oo waxani waa baraanki ayaan dhihi doonaa gadaal dambe balse xaqiiqada waxay sheegtay in ay ku dhacday oo wixii wara markaasi ayada ay noo cadaysay oo waxay Snapchat-keeda ku soo qortay inay single tahay de qof la qabo oo iska soo qorayna ma jiro single ayaa ahay waxaasina sharafteeda ayay markaas wax u dhimaysaa qofka inay hubto waa in la furay Habi Axmedna waxay Snapchat-keeda ku soo qortay sida u jeedaan waa kan Snapchat-ka been lagama sheegi karo qofna kaama been abuuran karo Snapchat-ka ayada ayaa soo gelisay iyadoo dhahaysa single ayaa ahay sidoo kale marka labaadna waxay soo gelisay qof faniskeeda daawada kamid ayaa waxa uu luuqa ugu qoray single miyaa tahay ayadana waxay u qortay sax single ayaa ahay anyways waxaan leenahay dhamaano walbood aan isku barno inay kala tagaan bulshadu way ka daaleen talabaad Habi iyo Cabdi Fataax waa laba lamaano oo goor dhaweyd isguursado 5 bilood camal isqaba waana labadii lamaano ugu horeeyay caan ahaa ee bilooyin yar isqaba hadana isfura kale waxaan aragnay lamaano xoogaa markay sanado isqabaan oo dadku ay aad isugu jeclaadaan ama cunug isku dhalaan ama waxa dhaca kadib ay markaas kala tagaan balse labadan lamaano waxay noqonayaan labadii lamaano ugu horeeyay ee muddo gaaban isqabay talabaadna Habi waxay sheegtay warar hoose inay reerkeeda diyaar u ahayd inay dhaqato balse ay sidan u dulqaado weeday sida ogtiin Habi maalmihii ugu dambeeyay waxay update ka ahayd dhankan YouTube-kana sida ogtiin wax laga sameeyay lacag fara badan Habi ayaana waxay dulqaad sameysay iyadoo istiri waxaan ma fiicin inaad fududaatida waxaan ku dhaninka furin ha weydiisanin shaqlaan maadaama uu yahay YouTube-kaaga fadhiisay shaqa maxaan ku dhahay ka abuuro isagana ha kula sameeyo dadkuna aad ay u daawanayeen lacag badan way ka sameyn kartay balse Habi ayaa u dulqaadan weeday in ayadoo biilkii soo maxaan ku dhahay dadaalaysa soo shaqeynaysa dane biilkii waxay ugu talagasho qaad lagu cuno kale fanaaniintu waxa la sheegayaa in uu aniga waxaas lahaa Cabdi Fataax waa fanaan balse ma isdhahayn uu qaad ayuu cunayaa balse qaadkuna waa wax qof walba balwad buu leeyahay oo fanaaniina sida la sheegay Cabdi Fataax ayaana waxa uu yiri aniga ii sawir waxaan ku dhahay aniga waa shaqeynaya shalab waa shaqeyn jiray ayadana waxay sheegtay in ay markaasi haday u sabartana ay ugu sabri karin in lacagta ay soo shaqeysay biilku ugu talagasho qaad lagu cunay wax maala yacni ah Cabdi Fataax ayaana lacagta intii uu haystay ku qarash gareeyay guurka ama arooska Habi maalintu aroosayeen wad ogeedeen arooska weyn uu dhigay qarashka inta ku bixi kartana wad fahmi kartaan ayada dhinaceedana waxay meher ahaan ugu qaadatay dadka oo dhan ayaa wada og oo ayada ayaa cadaysay wax walba ahaataba dadka qaraya waxay leeyihiin waxan waa baraanki balse baraanki ma ahan qof afkeeda ka sheegay in la furanay ma jiro single ayaa ah ayayna tiri laga yaabaa inay British isku soo laabtaan oo rajacad u dhaho kadibna ay iska dhahaan waxaan baraangi bay ahayd oo dadka isaga jeediyaan balse xaqiiqda ma qarsoontee Habi ayaa dadka oo dhan hadal hayaan waxayna leeyihiin maxay tahay 5 bilood gabadhii la qabo la furay maxaa waay sidan Habi walaashada ayaana soo hadashay iyadoo dhahaysa Cabdi Fataax waxa uu yahay dadku way ogaadeen tolkuna way ogaadeen oo maanta Cabdi Fataax shalay wuxuu iska keeniyay wiil wanaagsan laakiin maanta xaqiiqdiisa ayaa la ogaaday inkastoo inay noo sii faahfaahin waxyaabaha lagu arko ku xun yahay haddana waxaan leenahay kulay laaziman labada qof oo isfurto sabab un baa kala kaxaysa gabar walba iyo wiil walbana waa uu jecel yahay inuu reerkiisa uu ku nagaado uu maxaan ku yiraahdaa uunan iska kala maxaan ku dhahay bixinin balse wax walba calafka ka weyn ayaan leenahay dadka qaar ee dhahaya bilooyinka yar iyo sidan waan ognahay inay yihiin lamaanihii ugu horeeyay bilooyin yar ayagoo isqaba haddana isfuro haddana waxaan leenahay calafka ayaa shaqeeya waxa laga yaabaa kumanaan sano dad isqabay
inay isla markaasi ay isfuraan waxaana laga yaabaa ayagoo dad 2 bil iyo 3 bil isqabay ayaguna isfuraan hadba waa calafka siduu kuugu dheereeyo labadani lamaanana sabab alaala sababtay tahay ku kala tagaane ama xanaaq ama waxyaabo kala yimaada ama waxaad laga sheegay run ha ahaadane waxaan leenahay kulay calafka ayaa ka weyn wax waliba waxaan aaminsanahay ilaahay wuxuu qorinayso yani ma yimaado oo waxaan arkaysiin waa sabab maahe qof walibaba furiinkeeda iyo qabniinkeeda ilaa baa haya laakiin wixii lagu furi lahaa iyo wixii lagu gursi lahaa sababteeda ayaa laga yaabaa inay markaasi meesha timaado marka sabab kasta sababtay noqotaba Habi iyo Cabdifataax maanta labadoodu way garoobeynayaan nin garoob ma noqdo waa idinkii dhahay ninku sanadka 2023 ilaa 2022 laga soo bilaabo waxaan ku iraadahay nimanku waxa laga sheegaya hadii ay naag furaan in ayaguna dhankooda garoobo ka noqonayaan aynan dumarka bis ku eekaaninin sheekada garoobnimada hadaba waxa leenahay maadaama sheekadu garoobnimada ay socoto de labadoodu waa garoob waxa leenahay de wixii hadal ay ka soo kordho iyo wixii kale waa wada arki doonaa